Assalaamu calaykum walaalayaal. Waxaan idin rajaynayaa soom wanaagsan iyo caafimaad qab dhammaantiinba. Waa mar kale iyo taxanaheennii taariikhda Cusmaaniyiinta. Waa xilqadii sagaalaad ee taxanaheenna, taas oo aynu kaga warrami doonno haddii Alla weyne oggolaado furashadii Qustandiniya, weliba qaybtii labaad. Muuqaalkii hore waxaynu kaga warramnay barbaaritaankii iyo noloshii gaarka ahayd ee Suldaan Maxamed al-Faatix, iyo weliba caqabadihii ku gadaamnaa dowladda markii aabbihii Muraad dhintay. Halkaas ayaynu kasii wadi doonaaye. Maxamed al-Faatix, sida aynu hore usoo sheegnay, waxa uu aabbihii xilka kala wareegay isagoo 19 sano jira. Wixii ugu horreysay ee uu rabay inuu qabtaa waxay ahayd diyaar garow adag oo uu u sameeyo sidii uu hamigaas ilaa yaraantiisii ka dhex guuxi jiray u rumayn lahaa, una ballaadhin lahaa dhulka iyo awoodda dowladdiisa, isuguna xidhi lahaa gobollada Balqaanka iyo Anatolia, oo aynu hore usoo sheegnay inay Qustandiniya tahay meesha kala qaybisa labada gobol. Inkastoo ay jireen heshiisyo xabad joojineed oo dhex yaalla Bisantiiniyiinta iyo dowladda Cusmaaniyiinta oo amiiradii Cusmaaniyiinta ee Maxamed ka horreeyay saxeexeen, haddana waxa uu Maxamed baadhayay fursad kasta oo uu duulaan ugu qaadi karo Qustandiniya, ama helitaanka sharci u fasaxa mar uun ku duulitaanka magaaladaas gaamurtay. Ka hor duulaankii Qustandiniya waxaa jiray dagaal uu la galay hogaamiye la odhan jiray Ibrahim Bey oo inqilaab ku qabsaday qalcaddii dhibka badnayd ee Qaramaan. Ibrahim Beygaas oo markii uu kursiga fuulay amar diidda ku sameeyey dowladdii Cusmaaniyiinta ayuu duulaankii ugu horreeyay ku qaaday Amiir Maxamed, waxa uuna sidii caadada ahayd dhadhansiiyey hoogga iyo ciqaabta ay la kulanto cid kasta oo markaa isku dayeysay hor istaagga faafinta diinta Alle iyo weliba dowladda Cusmaaniyiinta. Markii Ibrahim Bey ciidankiisa cagta la mariyey, waxa uu farxad ugu galay dowladdii Bisantiiniyiinta. Halka aynu isyaro dul taagne, isaga oo Maxamed ku sugan goobtii dagaalka ee uu Ibrahim Bey ku jebiyey, ayaa waxaa soo gaaray waraaq ka timid dowladdii Bisantiiniyiinta oo lagu amriyey in Amiir Maxamed uu bixiyo cashuur labanlaab ka badan cashuurtii uu u arkaansiin jiray dowladdooda. Amiir Maxamed arrinkaas isagu wuuba farxad geliyey, wuxuuna u arkayay fursad uu kula dagaalami karo Bisantiiniyiinta maadaama oo ay iyagu heshiiskii jebiyeen. Sannadihii 1451 ilaa 1452 miilaadiga ayaa la dhammaystiray diyaar garow adag oo loogu diyaar garoobayay duulaankii Qustandiniya. Waxa uuna hawsha ka bilaabay go'doon uu ku sameeyey dhammaan hareeraha magaalada Qustandiniya, isagoo ciidankiisu u qaybiyey 3 qaybood oo waaweyn. Waxaa kale oo uu heshiisyo la galay 9 waddan oo uu Qustandiniya ku xidhnaan jiray ganacsigoodu, in ayna soo faragashanin arrinta iyaga iyo reer Qustandiniya dhex taalla. Ciidamada Qustandiniya ku sugnaa waxaa la sheegaa inay ahaayeen 5,000 oo askari, balse derbiyada dhaadheer ee Qustandiniya ayay ku teedsanaayeen, waxaana adkayd in duulaan toosa lagu qaado ciidamadaas maadaama oo aan iyaga waxba la gaadhsiin karin, iyana wixii u soo dhawaada ay muddo yar gudahood ku baabi'in karaan. Maxamed al-Faatix waxa uu warwarka ugu weyn ka qabay waxay ahaayeen derbiyadaas dhaadheer ee magaalada ku teedsan in ay ciidamadiisu ku leedaan, maadaama oo ay adeegsan jireen oo derbiyada dushiisa kasoo tuuri jireen dab la odhan jiray naarul aqriiq oo ay Giriigii hore ikhtiraaceen, kaas oo ah dab aanay xataa biyuhu damin karin. Balse waxaa Amiir Maxamed si lama filaana ugu yimi nin Hungarian ahaa oo la odhan jiray Orban, kaas oo sheegay inuu ikhtiraaci karo madfac aad u weyn. Kadib Maxamed ayaa ka codsaday inuu sida ugu dhaqsaha badan u sameeyo madfacaas, isaguna wax kasta oo uu u baahdo uu siin doono. Waana sida dhacday ee waxa uu ikhtiraacay madfac ay culayskiisa jiidayaan 70 dibi, gaadhaya oo wax ka burburin kara masaafo ka badan 1 mayl. Waxa uuna madfacaasi noqday nuclear-kii xilligaas, oo ma jirin guud ahaan dunida oo dhan madfacaas leeg ama xataa u dhow oo dowlad kala haysatay. Guud ahaanna caalamka oo dhan ayay yaab iyo dhabarnahays ku noqotay hubkaas intaa leeg oo waqtigaas Maxamed ku qabsaday magaalada lama galaanka ahayd ee Qustandiniya.
aynu ku soconno sheekadii diyaargarowgii. Waxaa kale oo uu amiir maxamed amray in la sameeyo 126 doomood oo ay ka galaan doomahaasi Qustandiniya dhanka gacanka Bosphorus, ka go'doomiyaana dhankaas magaalada. Sidoo kalena ay sameeyaan waddo isku xidha caasimadii Cusmaaniyiinta ee Aderina iyo Qustandiniya si ay ciidamadiisu si dhab yar ugu gaadhaan magaaladaas. Waxa uu go'doonka rasmiga ah ku bilaabay magaalada 6 Abriil, kadib markii ay ka dhaga adeygeen waraaq uu badhasaabkii Qustandiniya u diray Suldaan Maxamed oo u dhignayd sidan: waxaan kuu soo bandhigaynaa inaad si nabadgelyo ah magaalada noogu soo wareejiso, adigana aan adigoo badqaba Giriigka ku geyn doono. Qof kasta oo magaalada ku suganna wuxuu sii wadan doonaa shaqadiisa. Kiniisaduhu sidooda ayay sii ahaan doonaan, waana lagu cibaadaysan doonaa. Waxa kaliya ee aanu rabnaa waa inay Qustandiniya hoos timaado xukunka dowladda Cusmaaniyiinta. balse haddii aad arrintan diiddo oo aan magaalada xoog ku furto, waxaan xaq u yeelanayaa wax kasta oo hantidaada ah iyo weliba xataa inaan adiga kaa takhaluso. balse badhasaabkaasi arrintan dheg jalaq uma uusan siin. Maxamed Alfaatix waxa uu duqayntii ku bilaabay magaalada 10 Abriil, waxaana gidaaradii dhaadheeraa ee Qustandiniya lagu garaacay madfacii Hungariyaanku sameeyey iyo madaafiic kaleba. balse dhibta madfaca weyn ee Hungariyaanku sameeyey haysatay ayaa ahayd in marka hal mar la rido uu u baahan yahay 3 saacadood oo nasasho ah oo uu madfacu qaboobayo, maalinkiina keliya 7 jeer la ridi karo. Tanna ay Qustandiniyiinta fursad u siinaysay inay kala nidaamsadaan burburka uu madfacu u geysto, diyaargarow kalena ay sameeyaan inta aan mar labaad la soo duqaynin. Maxamed Alfaatix markan waxa uu hogaaminayay ciidamada bariga oo ay wehelinayaan ciidamo calooshoodu shaqaystayaal ahaa oo la odhan jiray Baashi Bazoq. Muslim iyo gaalabana way lahaayeen ciidamadaasi, waxayna ka amar qaadanayeen markan Maxamed, waxayna ku jireen ciidamadiisa weliba qaybta kaydka. taariikhdu markay ahayd 14 Abriil, iyadoo weli lagu guda jiro duqaymihii xoogganaa ee magaalada ku socday, waqti lagu guda jiro saacadaha nasashada ee madficii weynaa, ayaa waxaa qarxay madficii Hungariyaanku sameeyey, isagoo uu ku dhintay ikhtiraacihii Orban la odhan jirayna. arrintaas oo niyad jab weyn ku ahayd Maxamed iyo ciidamadiisii, haddana marnaba isma aysan dhiibin. waxaa kaloo dhacday in waddanka Hungary ka baxay heshiiska ay Maxamed wada galeen, kadibna doomo Hungariyaan ahaa oo madaafiic siday kusoo duuleen doomihii Cusmaaniyiinta, waxayna baabi'iyeen 100 doomood oo ka mid ahaa doomihii Cusmaaniyiinta. waxaana halkaa ku shahiiday 12,000 oo ka mid ah ciidamadii Cusmaaniyiinta. inkastoo hogaamiyaha ciidanka baddu amar ku qabay wax kasta oo dhacay inaanu dib u soo laaban, haddana waxa uu sameeyey amar diido, waxauna ciidankiisa ku amray inay dib u soo laabtaan, maadaama oo ay ula muuqatay qabsashada magaaladani riyo maalmeed oo Suldaan Maxamed maalin cad iskaga riyooday. markii Maxamed arrintaa loo sheegay, ayuu soo aaday dhankii ciidamada badda si uu ciidanka moraalkooda u dhiso, una sheego inaanay isdhiibin marnaba, haddii ay guuleystaanna ay noqon doonaan kuwii nebigu naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee 800 oo sano ka hor sii sheegay: wala nicmal jeyshu dhalika aljeysh. xadiiskaas rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayuuna ku dul akhriyay ciidamadiisa, isagoo mar walba u sheegayay in ay noqon karaan ciidamadaas uu sheegay rasuulkeenu sallallahu calayhi wasallam. taariikhda furashada magaaladani marba marka ka dambaysa way sii daba dheeraanaysaa, inkastoo aan soo koobayno taariikhda inta muhiimkaana aan mar walba ka soo qaadanayno, haddana waxaa qasaba inaan sheegno waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee arrintii khayru macquulka loo arkayay macquulka u bedelay. xalqadda soo socota ayaynuna insha Allah kusoo afmeeri doonaa furashada magaaladan. wallahu aclam. xalqadda xigta intaynu ku kulmi doono, sidaas iyo salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.